السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي سودو هذا channel كداونيسا ونونو أكاديمي إن شاء الله تعالى ما تحروا أنا كنت سو عشر ير أما فرصة ير أما وحياة ير وأذكر مهمة وفيسبوك جاga وحاول أمان كيسن مهمة for example فيسبوك جاga هو open قف كستوصل بقون كره سويرد النوع الباقو وجرو أمسي قف بعد وح كسميسي بل waxaad rabtay inaan lagu arkin ama la arkin profile-kaaga sawirada ku jiro marka waxa jirto hab lagu xirto profile-kaaga totally profile-kaaga waa loo garanaysaa lock ayaad ku xiraysaa kaliya adiga xitaa ma arki kartid oo markaad u baahato adiga xitaa inaad aragto waad iska furi doontaa logga marka kadib dadka dhan ayaa wada arki doona insha Allah ta'ala marka casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida Facebook-kaaga lock ugu xiran lahayd fadlan hadda channel-ka cusub tahay وحاول شارك سبسكرايب تاعي ودير جرين ادي على مهم نوقتها فضلا نوصل ورجينا انا صارت ادي هذا ما سنتي سيدو كلا مقالك لايك جري سيدو كلا فيديو شير جري سو صاحبنا نقال ادي هذا ما سنتي حاجه مركا جو صاحب وحادي ما نسى فيسبوك ايادي ما نسى فيسبوك نوع عاد استعماله مهمه هدي هاد لايت استعماله هدي هاد فيسبوك كلا استعماله وحاد استعماله مهمه كدب فيسبوكيga saan soo galay had soo jeedaan xagan oo Facebookigi marka waxaad sameynaysaa saaxib xaga marka joogtid calaamada saddexda geeskaas saddexda dot aad click ku siinaysaa xaga marka click ku siiso sida u jeedid waxaan soo galay waxa waaya setting-kayga iyo meelaha aniga ugu muhiimsanaa kadib hoos ayaad soconaysaa saaxib waxaad imaanaysaa insha Allah xagan ay ku qoran tahay setting xagaas ay ku qoran tahay ayaad imaan doontaa sida u jeedaan markuu saan kuugu soo baxo dadka qaar setting inay waayaan macquula laakiin markaas aad u soo socotid setting waatan xaga ayay taasha xaga soo jeedid waa setting ka ayaad dhig ku siinaysaa ama click ku siinaysaa xaga marka ay maadi saaxib saasa dhehaysaa wax yar ayaad kor u baxaysaa kadib saaxib waxaad iman doontaa insha Allah xagan ay ku qoran tahay profile locking oo jeedaa saan filayo waa profile locking xagaas ayaad click ku siin doontaa soo jeedid waxa ku soo baxay lock your profile kaaga loo garay and that's so dhaay oo jeeda only friends will see the photos post and the stories in your profile macnaha saaxibadaada kaliya ayaa arki doona macnaha profile kaaga taas waxay ka dhigan tahay dadka cusub oo hadda kugu soo biiray ama qofka hadda ku soo raadiyo profile kaaga ma arki doono insha Allah sidoo kale wuxuu ku leeyahay only friends will see your full size profile picture and the cover photo saaxibadaada hadda aad haysato kaliya ayaa arki doona profile kaaga buuxa maxaa yeelay qofka kugu cusub wajigaaga oo half ah ayaa la tusi doona profile kaaga gudaha uma gali doono sidoo kale wuxuu leeyahay people will still be able to search for you and send a friend request xitaa hadad profile kaaga xirato laakiin wali dadku waxay awoodaan inay ku soo raadiyaan oo waxa waaye aadna ka soo muuqato message-ka ama dadka laga raadiyo marka waxay ka dhigan tahay dadka cusub ee hadda ku soo raadin doono way kugu soo darsan karaan laakiin markay profile-kaaga ku dhuftaan wax information ama ka heli doonaan oo profile-kaaga uu logarithm doona insha Allah markaas oo joogto marka saaxib xagga hoose ay ku qoran tahay lock your profile ayaad ku dhufan doontaa oo waa soo jeedid wuxuu soo qoray your locked your profile and profile kaaga waa la xiray only friends you see can see the photos post and the stories in your profile saaxibadaada aad hadda haysatid kaliya ayaa arki doona waxa way postigaaga iyo waxyaabaha aad soo dhigto macnaha postigaaga iyo profile kaaga ay ku wada soo dhig marka xagga hadan okay dhaho soo jeedid durbaba wuxuu soo qoray you locked your profile kaagi waa la xiray macnaha waxay ka dhigan tahay haddaan dib uga baxo oo qof kale uu soo raadiyo sidaas ayuu noqonayaa sidaan ayuu qofka ku soo raadiyo noqon doona soo jeedid sidaan ayuu ku soo qori doona oo waxa waaye wax laga arki doono ama information ama xogtaada ku saabsan oo la arki doono male qof walba profile kaaga soo raadiyo ama inuu arko ugu talagalo wuxuu u soo qori doonaa this profile has been locked profile kan waa la xiray marka waa rajaynayaa inaan intaas fahamtay kadib haddaan u baahdo saaxib inaan iska furo isla meeshii ayaad ku soo laabanaysaa saddexda falaar ayaad imaanaysaa waad ku dhufanaysaa kadib hoos ayaa soo soconaysaa waxaad imaanaysaa xaggan ku qoran tahay setting
click ayaad ku siinaysaa kadib waxaad hoos ayaad soo degi doontaa waxaad imaanaysaa xaggan ku qoran tahay profile login xaggaas ayaa saa u jeedid waxaa arki doontaa xaggan ay ku qoran tahay unlock meeshaas unlock ay ku qoran tahay ayaad arki doontaa xaggan unlock ayaa ku qoran xaggaas ayaan click ku siinayaa kadib hoostan ayaan u soo degayaa oo wuxuu leeyahay unlock your profile kaaga fur kadib click ayaan ku siinayaa marka message ayuu soo saarayaa saa u jeed wuxuu dhahay you unlocked your profile more people may see photos post and list on your profile kaaga waa logo wad ka furtay dadkoo dhan way arki doonaan insha Allah waxa waay sawiradaada iyo muuqaaladaada dadkoo dhan way arki doonaan profile kaaga logo wad ka furtay ayuu leeyahay kadib maxaan dhahayaa marka okay ayaan ku dhufanayaa oo jeedaan saa u jeedid waa Facebook profile kii marka sidaas ayaad saaxiib waxa way ugu xiran kartaa una furan kartaa marka aad iyo aad u mahadsantahay soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضلا انت انا بحنا وكو حسوسيو channel هذا wax uun ka faa'iiday inaad subscribe ii saarto sidoo kale like taada waa muhiim because dad badan inuu gareeyo caawin doonta mar labaad aan ku xasuusiyo saaxiibadad soo booqatay subscribe ii saar aad iyo aad u mahadsantahay والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته